gobolka Bari iyo madaxda ciidamada badda ee Puntland ayaa waxa ay tababar ku saabsan ammaanka badda iyo waliba xeebaha ay uga fureen deegaanka Baargele ee bariga fog ee Puntland. waxa kale oo ay maamulka Puntland halkaasi gaarsiiyeen deeq raashin ah. Faahfaahinta warkani waxa Baargele nooga soo diray Salmaan Jamaal Saciid. waxaa degmada Baargal ee gobolka Bari gaaray wafdi oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan waxaana halkaasi kaga sii horeeyay ciidamada Mariniska Puntland oo halkaasi howlgalo ay kula dagaalamayeen kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ka fuliyay markii gudoomiyaha gobolka Bari uu gaaray degmada Baargal ayaa waxa uu maamulka degmada Baargal ku wareejiyay raashin isugu jira bur, bariis, sonkor iyo saliida kuwaas oo ay dawladda Puntland ay ugu talagashay dadka deegaanka oo abaaro xoog badan ku habsatay. Masar Galan oo ka hadlayay mar uu raashinkaasi ku wareejinayay maamulka degmada Baargal ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa raashinka ay dawladda Puntland ugu deeqday dadka halkan ku dhaqan waa raashin isugu jira sokor iyo bur iyo bariis iyo saliid mana aha raashin ku filan laakiin xaaladda markaa jirtay oo degdeg ahayd bay dawladdu ka jawaabtay waxaanu codsanaynaa oo aanu cid walba international community-ga international NGOs-ka iyo UN intaba aan ka codsanaynaa in dadka halka ku dhibaataysan deegaanka ballaaran oo abaaraha xoog leh ay ka jiraan in loo soo gurmado. inta kadib wafdiga gudoomiyaha iyo saraakiisha ciidamada Mariniska Puntland ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad ka dhacday xaruntii hore ee Boqor Cismaan isla degmada Baargal. munaasabadaasi ayaa lagu dhisayay ciidamo ay yeelan doonto degmada Baargal isla markaana tababar loo furay. taliyaha ciidamada Mariniska Puntland Cabdirasaaq Diriye Farax oo la hadlayay ciidamada tababarkan loo furay ee degmada Baargal ayaa waxa uu yiri waa idin dhaarinaya kitaab baan idin marinaya nin walba kitaab baan marinaya intaan masaajidka tagno waa isu weysiisanayna nin walba shaqadaas uu qabanayo oo aan wax kala ahayn aniga inaad shaqo i qabanaysaan ma cid kale inaad shaqo u qabanaysaan ma ujeeddadu waxa weeye war Baargal daacad ma ka tahay in ay dawladnimo ku soo noqoto oo ay systemka dawladnimo ku shaqeyso oo burcadda aan la dagaalantid oo dadka mucaaradka oo dadka kala jajabinaya oo ninba meel u diraaya aan la dagaalantid magaaladuna ay horumar gaadho diyaar ma u tahay ilaahay dartiis waa intaasaynu isku dhaafsanaynaa xaquuqda iyo xaqa aad leedihiin laga bilaabo maanta qadada raashinkiinna waa diyaar mushaharada waa diyaar bisha tan markay dhammaato mushaharadiinna barasaabkaa laga rabaa cidduu idinku shubaya isagaa yaqaan gudoomiyaha degmada soddonka markay tahay mushaharadiinna waa qaadanaysaa. gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan ayaa ka dhawaajiyay in degmada Baargal ay heli doonto dhammaan wixii xuquuq ah oo ay lahayd. hadda waxaa naga go'aana oo naga qorshe ah magaalada Baargal hadduu ilaahay idmo ku xalaala iyo wixii ay xuquuq lahayd inay hesho hadday tahay tii ay hay'adaha ku lahayd hadday tahay tii ay dawladda ku lahayd tii ay dadkeeda ku lahaydna idinkaa laydinka rabaa inaad ka soo saartaan oo ka shaqaysaan. waxaa la socotaan waxaa u diyaarsan Baargal ciidanka Marinisku magaalada waxbuu ka degi doonaa waxa uu ka qayb qaadan doonaa horumarka magaalada waxa uu ka qayb qaadan doonaa oo idinku xoojin doonaa sugidda amniga. intaasi kadib ayaa gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxa ay booqdeen goobta lagu magacaabo Rasubina waxauna halkaasi kula kulmay kaluumaysatada halkaasi ku sugan waxauna ka waraystay dhibka haysta kaluumaysatadaasi. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal.